beri dhexdaas mar ayaa aad waxa u soo shacbaxay kala aragti gadisnaaso idin dhaxaysa dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah ee federaalka ah inkastoo hadda ay u muuqato in arintaas la xaliyay wadan noocay ah u marteen arintaas in la xaliyo maxaa damaanad ah inaan mar kale hadana buuq uusan bilaaban doonin arintaas ku saabsan ma fiiri mar walba oo horta wada shaqeyn ay jirto waa imaanaya marmar in uu dhaco isfaham waa ama khilaaf uu dhaco ama kala aragti duwanaansho haddaan si kala u iraahdo kala aragti duwanaanshaha macnaheedu waxay tahay in la isqa qabsado marmarka qaarkood waxay aad uga wanaagsan tahay in la kala tago dalkeena waa dal hadda soo koraya waa muhiim in dadka dhan ay ka wada tashadaan danaha ummadda Soomaaliyeed aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka in xiriirka aan la leenahay uu aad u wanaagsan yahay marmarka qaarkood inaan wada hadalno aan arrimo ka wada hadalno masiir u ah ummadda Soomaaliyeed waa sababta aan u dooranay nidaamka ummadda Soomaaliyeed ee qaateen oo ah inaan nahay federaal sagaalka bilood oo aan joognay waxaan isu nimid marar badan saddexdii biloodba mar ugu yaraan halkan ayaan isugu nimaadnaa shirka amniga qarankana waan galnaa shirka dawlad goboleed ee dawladda federaalka oo loogu falanqeynayo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna waan galnaa macnaheedu waxay tahay xiriirka naga dhaxeeya wuu sii xoogeystay hadda waxaan aaminsanahay in dawlad goboleedyada gobolka Banaadir dawladda federaalka kulligan aan ogaanay kulligan in loo igmaday inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed meesha hadda ay joogaan meel ka wanaagsan waxaan nala ku qiyaasi doona nala ku cabiri doonana ay tahay maxaan u dhisnay ummadda Soomaaliyeed intaan anagu aan xukunkayn